السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا شرفت بدن فرحد يعافي ما تقب أن يدين رجينيا نينكن وحو تلمامي وقرار كيسا كسو حسي وحو يري دوانا ينقور سدي أنيقو قور هوران سو مري لكن إميكا قبر ينقور سدي آن يدو سو قرسن وأنقور هورا سو مرين وحو الحاس كاس markii aan u tagay habeenkii arooska kalama kulmin wax cidhiidhiya iyo waxaba yaraatay xanuuna iyo wax dhiba oo ay dareentay markii aanu gogosha iskugu nimi wuxuu yiri goob furan iyo wado furan ayaan markaa galay oo markaas goobta xilligii sariirta iyo gogosha markaanu ku jirnay wada iska furan ayaan maray buu yiri haddaba arrintan ma loo arki karaa guur horena may soo marin iimayay sheegin inay markaa ay qof soo guursadeen ma la oran karaa qoftani waa qof xumaan ku soo dhacday ama la soo faraxumeeyay oo sidaas ma uu qaadan karaa mise arrin kale ayaa jirta buu yiri aad buu mahadsan yahay haddii aynu u nimaadno arrintan uu ka dhawaajiyay haweenayda marka aad isguursataan sida ay kuugu sheegtay wax ayuunbaa adiga mas-uuliyadda ay ku saarani ay tahay inaad u aaminto gabadh baan ahay gabadh bay kuu tahay dhinaca kale wax cidhiidhiya kalama kulmin wax xanuunana may dareemin oo markaa bigra jabintii xilliga ahayd buu ka hadlayaa xaaladdaas may dareemin arrinta haweenku way ku kala duwan yihiin waxaana keenaya qaabka uu furan yahay xubka bikradu da'deeda sidoo kale bikradu haweenayda iyada oo aan xumaan lagu samaynin oo aan soo guursanin ayay ka dabci kartaa ama ay waayi kartaa qodobada ay ku waayi karto muuqaallo hore ayaynu ka samaynay ma doonayo waqtiga inagu kaaban inaynu iminka aad u sii gudagalno kaliya haddii talada walaalka aynu ku soo dhowaano waxaan kugula talin lahaa arrintaas waxaad u qaadanaysaa inay xaaskaagii oo si qurux badan kuugu timi oo hawshiini si fiican idinku dhacday aad ku aaminto inaanad markaas aanad meelo kale ka fadgudin oo aanad wax kala sawiran oo aanad shaki iyo waxyaabo noocaas aanad gelin inaad markaa horsocodka qoyskaaga iyo xaaskaaga farxadeeda aanad cidhiidhi gelin ama arrintani aanay ahaanin arrin gurigiina dumisa oo dhibaataysa oo idiin geysata inaad ku kala tagtaan ama xataa iyada haddii aad dareensiiso ku abuurta iyaduna inay walwasho adiga waxa laaga baahan yahay inaad markaas mas'uuliyadda imika wixii ka dambeeya ayuu baadiyada mas'uul ka tahay naftaada sidaad u ilaalinayso iyadana inaad u ilaaliso ayaa muhiima isla markaana inaanad cid kale oo markaa arrintaas aanina ka ahayn aanad la wadaagin intaas ayuu baan kugu soo ururin lahaa taladaada la sii wadaaga bulshadeena kale. Wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.